marka shantaas shay ama shantan qalad ayaa keeni karto in keliyaheena ay waxyeeloobaan oo sida hortiina ka muuqata ay noqdaan. markina fahanteen ayaa rajaynayaa shanta shay waxay yihiin iyo haddii uu qofka keliyaha waxay ka mid yihiin xubnaha jirkeena u qaabilsan nadiifinta dhiigga, saaridda wasaqda iyo dheecaanada dheeriga ah oo jirkeena u baahnayn. waxay ka mid yihiin xubnaha la-aantood uu jirka shaqayn karin haddii ay fadhiistaan ama shaqada ay joojiyaan. waxaa qofka qasab ku ah inuu si degdeg ah u helo beddelkooda ama ugu yaraan si joogto ah loo nadiifiyo dhiigga si wasaqda looga saaro oo booskooda loo buuxiyo si jirka uu sii shaqeeyo. insha Allah waxaan kula wadaagi doonaa qaladaad inta badan aad samayso kuwaas oo ka qayb qaadan kara naafeynta ama waxyeelada keliyaha balse aadan ka warqabin maadaama wacyigelinta bulshada ay aad u yar tahay. waxaan kale oo sharxi doonaa sida qofka ku garan karo marka keliyihiisa ay cillad ka jirto iyo tallaabooyinka qofka u baahan yahay si degdeg inuu u qaado si loo xakameeyo xaaladaas halista gelin karta keliyaha sababi kartana in gebi ahaanba ay shaqada joojiyaan. ugu dambeyn waxaan bixin doonaa talooyin wacyigelin muhiim ah oo ku aadan xaaladan. magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq. soo dhawaada markale. inta badan bulshadeena marka ay noqoto cabitaanada kala duwan iyo cunista cuntooyin kala duwan inta badan iskuma dheelitirno oo ma baalansi gareyno. sababta ugu weyn waxay tahay bulshada oo aan helin wacyigelin ku filan si ay u kala ogaadaan waxa jirkooda dib u keeni karo iyo cuntooyinka caafimaadka ama health foods wax loo yaqaan. marka aan gudagalno waxa waaye qofka inuu cuno hilib fara badan oo sida hortiina ku qoran waxa waaye hilibka wuxuu ka mid yahay wax loo yaqaano acidogenic wax loo yaqaano ayuu ka mid yahay maadaama protein uu ka samaysan yahay. qofka aad u isticmaalo ama si zaid ah oo u cuno ama uu aad u badsado waxay keenaysaa sida hortiina ka muuqata waxa dhacayo in dhiigga acidity-giisa ama acidka uu ku farabato taasoo khatar ku ah in keliyaha keeni kartana acidosis wax loo yaqaano. sida caadiga keliyaha sa ognahay shaqooyinka ay qabtaan waxaa ka mid ah acid base balance wax loo yaqaano. marka waxaa dhacaya qofka hadduu hilibka aad u isticmaalo in kelidii ay awood u yeelan wayso waxa dheeriga ah inay saarto maadaama tan ka xoog badan qofka oo isticmaalay. marka sida hortiina ka muuqata arkaysaan qofka waxaa fiican inuu yareysto ama uusan badsanin ama maalinka si joogto ah oosan wax fara badan oosan u cunayaa fiican. laakiin sida caadiga proteinka ama hilibka jirku u baahan yahay laakiin qofka waxaa la rabaa inuusan aad isugu badinin cunista hilibka. sida hortiina ku qoran oo ku baalansi gareeya ama inta badan ku daro haddii uu cunayo qudaar kala duwan inuu raaciyo oo fruitska iyo vegetables waxaan loo yaqaano. taas waa marka qodob koowaad oo qofka hilibka hadduu aad iskugu badiyo keliyaha ay waxyeelayaan. si u waxyeelayaan waa sida hortiina ku qornay waan sharaxnay. laba waxa waaye qofka haddii uusan cabin biyo ku filan. qodobka mar walba waa sheegaa macnaha qofka hadduu biyo ku filan cabin dhammaan systemyada jirka maskaxda wadnaha keliyaha dhammaan xubnaha jirkeena xitaa maqaarka qofka hadduu biyo ku filan cabin dhibaato ayaa ku imaanayso. waad sida hortiina ku muuqata keliyaha si qashin saar u sameeyaan oo banaanka suntii iyo wasaqda ay ugu saaraan waxay u baahan yihiin biyo. marka biyahaas ayaa lagu saaraa. marka haddii qofka biyo cabkiisa oo yar yahay wasaqdii jirka mataqaana ayay ku jiraysaa taasoo qofka halis ku ah guud ahaan jirkiisa gaar ahaan keliyihiisa. qofka waxaa la sida hortiina ku qoran qaangaarka 2 litir biyo ugu yaraan maalintii waa inuu cabaa. markiina fahanteen ayaa rajaynayaa. 3 waxa waaye qofka haddii uu jiifan waayo hurdo ku filan jirkeena sida caadiga ah 24 saac inuu shaqeeyo way ku adag tahay oo sida hortiina ku qoran waxaa ku fahmi kartaa qofka haddii uu soo jeedo 24 saac in ka badan waxaa laga yaabaa maskaxda si caadi inay u shaqeyn wayso oo qofka xaalad waali ah oo ku sigto ama controlka oo ka baxo ama dabeecadda oo kulmo ama hormoneska balansigooda isku dheelitirnaantooda meesha ay ka baxaan. marka saa arkaysaan hortiina ku qoran qofka xilliga habeenkii waxaa aad loogu soo daayaa hormoonka hortiina ku qoran loo yaqaan ADH-ka kaas oo laga soo daaya maskaxda
sababana yacni kelida in biyo badan aan laga saarin oo habeen qofka kaadi fara badan uma soo kaco qofka caafimaad qaba sababtoo xitaa waa hormoonka maskaxda uu soo deynaya si qofka uu nasto keliya u nastaan si mataqaanaa shaqadii xoogaa loo yareeyo يعني maadaama 24 saac wixii aysan shaqayn karin marka haddii qofka uu soo jeedkiisa uu badan yahay oo saacado kooban hurdaayo waxaa dhacaya yani shaqadii inaysan kala yaraan ama maskaxda ha noqoto ama keliya ha noqoto ama guud ahaan jirkaba yani qofka jirka wuxuu u baahan yahay waqti oo nasto si xubnaha jirkeena yani shaqada xoogan ay hayaan wax yar hoos oo ugu dhacdo si nasiino u helaan marka sida hortiinaba ka muuqata arkaysaan marka waa muhiim qofka inuu hurdo ku filan hurdo haddii qofka soo jeedkiisa uu badan yahayna waxyaaladan ayaa ka imaan karta oo ku imaan karta keliyihiisa iyo guud ahaan yani jirkiisa iyo maskaxdiisa wax la midka ah qofka inuu hurdo ku filan hurdo yani waa wax aad muhiim u ah sida hortiinaba ku qoran afar waxa waaye qofka yani in uu cuno cunto yani sokor fara badan leh ama sokor lagu kariyo lagu sameeyo sababtoo ah sokorta faraha badan leh waxay keenaysaa in qofka yani uu cayilo oo miisaankiisa oo kordho sida hortiina ka muuqata miisaanka doo kordhana qofka yani oo xididadii yani xeer iyo wax lamid ah inay dufin gasho ama ay xirto taasna waxay siyaadinaysaa cadaadiska dhiigga qofka dhiiggar ayaa ku keeni kartaa sidoo kale xanuunka sokorta ama macaanka loo yaqaanayo qofka yani ku keeni kartaa labada xanuunna waa yani labada xanuun yani ugu badan ee keliyaha inay shaqada gabaan ama keliyaha inay waxyeeleeyaan keeno waaye marka qofka waxaa lagula taliyaa sokorta faraha badan hadday noqon lahayd shaaha hadday noqon lahayd sokorta cuntada kala duwan oo kaco hadday noqon lahayd rootiyada sokorta faraha badan lagu sameeyey iyo wax lamid ah yani waxaas oo dhan qofka yani inuu iska ilaaliyo yani ama uu yareysto ayaa fiican shan waxa waaye cusbada yani cusbada sida hortiina ku muuqata arkaysaan haddii ay jirku ku badato waxay siyaadinaysaa cadaadiska dhiigga taasoo khatar ku ah tiftaafidan ama capillaries-ka ama shaqshaqan keliyaha cadaadiskaas dhiigga ah yani dhibaato ayuu u geysan karaa guud ahaan jirka gaar ahaan mataqaanaa keliyaha sida hortiina ka muuqata qofku waxaa fiican cusbada inuu aada u yareysto ayaa fiican oo yani aada iskugu badinin dadka qaar ayaaba cuntada kor ugu darsado markay cuntada soo ritaan ama soo gurtaan waxay sameeyaan cusbo ayay ku cunaan waana arrin halis ah oo aan fiicnayn cuntada in cusbo lagu badiyo ama cuntada cusbo badan lagu cuno ama waxyaabahan cusbada yani badan leh lagu sameeyo qofka inuu isticmaalo yani wax fiican maahan inuu yareysto ayaa wanaagsan marka shantaas shay iska taxadar oo sax iskana ilaali yani inuu qalad dhankaas ka yimaado si keliyahaada aysan u waxyeeloobin waana wax adiga aad controli karto shantan qodob waxa usoo qaadan wax qofka uusan controli karin yani micno badan kuma fadhiyaan laakiin wax oo controli kara oo qaladaad dhankiisa ka imaaday ah yani ayaa ah qofka inuu iska saxo si uu ugu dadaalo caafimaad qabka keliyihiisa si uu uga hortago xanuunada ku imaan kara marka haddii marka yani qofku iska controli waayo yani waxaa dhacayo يعني إن كليه waxyeeloobaan kana fahanteen ayaa rajeynayaa shanta shay ee keeni karta in keliyaha ay waxyeeloobaan insha Allah waxaan rajeynayaa ka taxadiri doontaan cashirkan si kusoo koobeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.